muuqaaladan ka imaanaya gobolka Darfur ee Suudaan ayaa tilmaamaya xasuuq ay geysanayeen ciidamada RSF saacadihii la soo dhaafay waxaana hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegtay in 460 qof ay ku dhinteen dagaalkan iyo xasuuqan ay wadaan ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF uu hogaaminayo Xamdaan Dagalo saacadihii la soo dhaafay hay'adaha qaramada midoobay ayaa cambaariyay xasuuqii ka dhacay gobolka Darfur gaar ahaan magaalada Al-Fashaar waxaana saacadihii la soo dhaafay la sheegay in ciidamada RSF ay qaadeen tallaabo adag oo ka dhan ah dadka shacabka ah ee ku sugnaa gobolkaasi madaxweynaha dalka Suudaan oo Burhaan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in argoosi ka dhan ah dhibaatooyinka loo geystay dadka shacabka ah ay ku qaadayaan ciidamada RSF ee markaa dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dadka shacabka ah ee ku nool gobolkaasi Darfur muuqaalo iyo sidoo kale sawiro laga soo qaaday ama la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dadka shacabka oo ka barakacaya qaarna xasuuq loo geysanaya kuwaas ay ku jiraan hooyooyin markaa dhabarka ku sita caruur daayar xaaladan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo saacadihii la soo dhaafay ciidamada RSF ay guulo ay ka sheegteen dagaalka ay la galeen ciidamada Suudaan madaxweynaha Suudaan Cabdel Fattah al-Burhaan ayaa sheegay in midan ay ka dhigan tahay xasuuq ku wajahan guud ahaan shacab weynaha Suudaan waxaana uu sheegay in ciidamada dalka Suudaan ee militariga ah ay qaadayaan tallaabooyin cad ee ka dhan ah dhibaatooyinka loo geysanayo dadka shacabka ah arrimahan ayaa ku soo beegmay xilli hay'adaha qaramada midoobay ay sheegeen in dadkii ku barakacay colaadan ay wajahayaan gaajo iyo sidoo kale macaluul waxaana bilihii la soo dhaafay xaaladda ka taagneed dalkaasi Suudaan ay ahayd mid u dhaxaysay ciidamada militariga Suudaan iyo sidoo kale kuwa mucaaradka RSF balse xilliga waxaa la arkayay iyadoo dadka shacabka lagu xasuuqayo goobihi iyo sidoo kale qaababka ay ku sugnaayeen waxay warar ku soo kordho hoyga Banaadir TV ayaad ka daawan doontaan